wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay bilaabanayaan duulimaadyada xilliga habeenkii ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho kadib markii la dhameystiray agabkii loogu talagalay in garoonka xilliga habeenkii uu ku shaqeeyo. Cabdullaahi Axmed Kulmiye ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya. wasiirka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka xukuumadda Soomaaliya ay u helinayaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda iyo maareeyaha maritaanka hawada Soomaaliya maareeyaha guud ee maamulka nabadgelyada garoonka ayaa maanta sheegay in howlaha shaqo ee garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle uu yahay mid si toos ah u shaqeynayo 12 subaxnimo ilaa 10 habeenimo si shaqada habeenka garoonku noqdo mid ay bulshada ugu faa'iideystaan kadib markii dowladda Soomaaliya ay la soo wareegtay saadaasha hawada. wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka xukuumadda Soomaaliya ayaa shirkadaha duulimaadyada ka sameeyo garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle u sheegay in xilliga habeenka ay sameyn karaan duulimaadyada heerka caalami isla markaana garoonka loo dhameystiray adeegyada garoomada caalamka ay leeyihiin. Axmed Macalin Xasan maareeyaha maritaanka hawada Soomaaliya ee garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle ayaa sharaxaad kooban ka bixiyay waqtigii lagu kordhiyay xilliga shaqada garoonka diyaaradaha airportka Muqdisho oo saacadii uu furnaan jiray lagu daray 4 saacadood. مثلا markii aan soo qaato airportka wuxuu shaqeyn jiray 12 aroornimo oo ah 6 aroornimo ilaa 12 maqribnimo ama 6 maqribnimo intaas ayuu furnaan jiray. taas waxaa ka dhalatay in maaragtay diyuurada fara badan ee airportka yimaadaan airportkii mashquul noqday baakinkii ama meeshii ay diyuuradu istaagayeen ay diyuuradii deeqi waysay. marka waxaan ku khasbanaanay dowladda Soomaaliya waxay ku khasbanaatay in si loo baakin space loogu helo diyuuradaha soo kordhay in saacadii garoonku shaqeynayay la kordhiyo oo lagu daro 4 saacadood oo dheeriya. dowladda Soomaaliya ayaa u sheegtay shirkadaha isgaarsiinta ee gaarka loo leeyahay antoonooyinkooda ku yaala degmooyinka Waabari, Xamar Weyne, Xamar Jajab, Warta Nabadda, Hodan, Wadajir inay ku xiraan leerar muujinaya antoonooyinkooda si diyaaradaha duulimaadyada sameeyo xilliyada habeenka aysan dhibaateynin. wasiirka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad oo madasha ka hadlayay ayaa sheegay in ahmiyadda ugu weyn ay tahay in garoonka habeenkii ku soo degi karaan diyaaradaha heerka caalami. ahmiyadda ugu weyn hadda meeshan aan sugu nimid maanta waxay tahay inaan idin la socodsiino sida aad la socotiin airportkii waxaa loo sameeyay runway lights waxyaabihiina looga baahnaa in diyaarad ay habeenkii ku soo degto oo idil waan sameynay laakiin internationally diyaaradda ka soo baxaysa hadda wadamada kala duwan ee adduunka ma ogaan karin in airportku uu furan yahay habeenkii. marka saacadda ka bilaabato maanta waxa inoo bilowday in internationally loo ogeysiiyay diyaaradaha adduunka oo dhan iyo waxa hawada isticmaalo dhan in garoonka Aadan Cabdulle International Airport Aadan Cabdulle International Airport uu furan yahay subaxii laga soo bilaabo 6 in the morning 6 subaxii ilaa iyo 10 in airportkaas uu noo furan yahay ay diyaaradahu og yihiin. dhawaan ayay ahayd markii ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre uu xariiq ka jaray mashruuca dib u howlgelinta duulimaadyada xilliga habeenkii in ka badan 20 sano garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle u sameeyeen duulimaad xilliga habeenkii. Cabdullaahi Axmed Kulmiye warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.